waddankan ku dhashay waxaan waxbarasho shahaado waddanka India kulliyadda dhaqaalaha miyir waxaan soo bartay anigoo waxbarashadeeda soo dhameystay ayaa waxaan arkay Soomaali guuris oo Canada isku shubay meeshii aan soo noqon lahaa baan qolada dhaxbooday ayaa haweeney soo wacday marka waxaan marmasiin ka dhiganay sharci ma haysto soo bixi karo hadii wada dhigayso haday nolosha kugu adkaatay أنا كنت علي كون بيلي جري سريت أتسحن جتين واديار بيل كاجن سيدان وهاد كاري وحيتيرو لبمت حوالي يدعمت مركو حنا قانا قولا إسو أحباء هايان أساقا وإسكو مريي مادين قاربا $60 كوتي قاربا $20 كوتي قاربا $50 نمو وحمو سوقات لكن كان وحبا تير كيوان سوقات يا الله كصبح مركان وحان دمعاونا هورتكو قنعيو تاسو دايمان قالي محاولة أفريقية مارن وحا إيربري وانبحيا باسبوك نو يجيبي سبكي قدر قفك ما أنت دانيرتا اسكول كدمي أما جامعة دمي ربا إنو التهريب قالوا كسوقات هذا قدر إيه سومالي وسودو يسمى ناقاكو كانت حسابكو نفسه بسم الله الرحمن الرحيم عمو خير الله كسيو أدي هرت الشباب إذن كحرن يوتيوب كان وحرب مانتا إن لو ذا شاكير وكصابسن مركي أن دمعي إن تحريبه طبعا الشيء كذا وحن أطلق غيرت إني داودان إنتيسن سفر كجلن أنا ما تحريبن لكن مركان أفريقيا كسو بحي يعني أنا صاحبنا هاي يا شاكنا الأحمرتين شاكا سربنا شاكا مقدمه waxaan ugu dhigayaa horta ninka sheekada ay nadhaxmartay oo aan iku socoto waxa la yiraahdaa Cabdirasaaq Ali Dheere had waa inta Allah u naxariisto Cabdirasaaq waxa kale lagu garan karaa qofka Soomaaliya Soomaaliya jooga ama East Africa dhan jooga shirkadda la yiraahdo Haas Petroleum ninkii asaasay way waxaan isbaranay Cabdirasaaq sanadka markuu ahaa 1996 anigoo joogo magaalada Nairobi wuxuu ka mid ahaa group dhalinyaro ah oo markaa Canada ka soo noqotay nin akhyaar iska anigu barasho guud baa naga dhaxaysay ka bacdi anigu waxaan u guuray magaalada Kisumu goor dambe oo 1996 97 ayaa aan ku kulanay magaalada Kisumu muddo 3 sano ayaan wada joognay in akhyaar ma sha Allah كل شيكون كيسا وحلي شيكون معجزة قف كسو نكاس يقانو وحكاغا شاكينيا شيكا تأثير له ونفط هذا وحكاغا تغيتو مركا أنيقا قايبتان هدا أفضلنا يوحوي عبدالرزاق وحو أركي أنيقا الربا إنان ودن كان هدا هدا وحكو دوبي ومغالة دوحة ودن كقدر سنة كحوها لابد كون هول خير بأسلحيني مالن بان هوست كجيل حكوا عبدالرزاق ولا لو خير الله كسي أنت تشقيني جزاك الله خير وعن بحيا وعن قصة على وطنك اللي قار حيرني وما تسكجوكت ما يمجو عذر ضرب بين الإمد وحسن وظروف ساسجة ظروف هذا هذا عباد بقصة نقضايا نيو حير خير بذاك مش كويسة هول خير وضحينا ظروف دخل هدي جتنا كعم بان كسيني مسك جوتي ما ينكر اليوم وان بحيا كل بحيسا اسبوع صوصعو مركو حيري اوكي في زاد وهذا اساس معها هل اسمه اسبوع قدام سفره وحنا اذيا مجال اللي هذا ودك لتنزانيا ما دام هذا وحنا هنا يسرع كان اسرعني دب ما له دير اسبوع عسى مركز اسبوع عادي ظروفتي وقت كده رنتي وانا بهنا ان رحله قالوا انت انا شاكل اذن بالله عبدالرزاق وحول انتي 2009 2008 كو يمد نكاسي سبحان الله ما نكس او جمعه ايان حسوستا waxaan ku xasuustana waan garan waay waxa is ira marka
ninkan maalin kastoo jimco ah aad xasuusinaysid waxaa idin dhex maray bal dib u raac marka qoraallo dhaadheer baan sameeyey oo arrintaas aan kaga hadlayo marka waxaan soo ogaaday dib markaan u raacay safarkaas aan aadayno ayaa waxaan baxnay khamiis jamcihii masaajidka aan ku tukaday iyo wixii dhan baan xasuustaa rixle waxay ii ahayd runtii aniga aan u baahnaa oo maalin jimco kusoo aaday marka sababta aan isleeyahay xasuusta jimcaha aan ugu magac daray inay taa ahayd baan u malaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala waan u duceeyaa maalintaas jaanis fiican waa idinkana waxaan ka codsanayaa inaad u duceysaan almuhim cabdirasaaq wuxuu yidhi ken shirkii waan baxnay asaga iyo walaalkiis cabdinaasir iyo waa badnayn tiim dhan baan ahayd waan baxnay tanzania tagnay meelo badan qurux badan baan sii marnay dhulka dee tanzania kullii qofkii dhex maray dhul waxaa jira libaxiye iyo xayawaano dhex maray aniga dalxiis aan weliga ku fikirin gaarin aan ku dhex marnay cajiib ahayd soo socodkii ayaan jaanis soo helnay marka aniga asaga iyo darawalkii baa soo noqon asaga iima sheegin hadafku ii kaxeeyey wuxuu islahaa ninkan malaha maadaama saaxiib muddo 3 sano soo wada shaqeynay runtii acmaal khayriyan ka soo wada shaqeynay mashruuc agoomada oo aan hadda jaanis u haynin oo cajiib ahayd ayaan maqaaladan aad heli doontaan oo rajayna ayaan ka soo shaqeyn jirnay marka waxaan u qaatay anigu inuu rabo inuu markaan waqti yaro raaxa aan wada qaadano laakiin markaan soo noqonay dhageysi fa ku sheekeynay maanta isagana qof yaqaan dad nin hadlama asxaabtii taqaani cabdirasaaq nin sheekayma waa nin wiila qosla wuu kaftamaa laakiin inuu sheeko dheer aniga 3 sano shaqay weligii maalin sheekay buu sheegay laakiin maanta wuxuu go'aansan inuu sheekay waayaan ku riga cabdirasaaq caadan u dhageys wir waad socotaa aniga taariikhdii ma la socotaa wir ma yaan ku wallahi inaad kala ka timid haddana aad ganacsi meesha ku haysto ma naqaan nin wuxuu aniga wadankan ku dhashay waxaan baro shuhaado wadanka India kuliyada dhaqaalaha miyir waxsan soo bartay anigoo wax barashadeeda soo dhameystay ayaa waxaan arkay Soomaali guuris oo Canada isku shubay meeshii aan soo noqon lahaa baan qolada dhaxbooday waa baxay Canada tagay qaxooti baan sheegtay walaalahay aniga dadka aan safka wada galnay biyodi waa dad xaqiiqi oo Soomaali ka soo qaxay oo garanaysa duruuf adag luqadda ku adag tahay dhibaato Soomaali laakiin aniga waxa dhibaato ma haysto marka isla markiiba dadkii baan u turjumay walaal horta maadaama aan aqoon aan ahay dadkii baan u turjumay qaxootigina waa sidii baan ku galay process dheer baan galnay sharcigii baan sugnay waa shaqo tagnay xamaal dheer baan galnay buri 10 sano ayaan wadanka soo joogay marka waxaaniyo meeshii sidii aan rabay waan noqon waayay aniga agoonnimo ku soo koray hooyaday ayaa nool waxay subxaanallah wax alla wixii aan ku dhaqaaqo dhan wax kala soconay ma jiraan shaqada soo ka shaqeey waxaan awood waayay inaan biilka hooyaday joogtay wuxuu security ka shaqeey ninka shahaadada meel ma laga yiri security waa ka soo shaqeey maqaaxi waa ka soo shaqeey si aan u wax un biil u dabara baashi way ka dhaqaaq waas sharcigi baa 10 sano ugu qaatay sharcigi markaan saa u helay ayaa hooyadii soo wacday marka waxaan marmasi ka dhignay sharci ma haysto soo bixi karo hadir waa dhigays haday nolosha saa kugu adkaatay anaa ku dhalay kuna beeli jiray sariirta aad ku saxan jirteen waa diyaar beelkaagan sidan u hayad kale waa warwareeg waxay tiri laba mid habaar iyo ducmad ma yadda nin akhyaaro inuu wadaad ku noqday inuu markii soo wadaad ahaa ma aqaan in ma sha Allah almuhim amar baa la duligay inuu yimaado waxay dadku dhammaan u sheeg waa noqonaya markaas waxaan taxi u daaway nin hinduus ah ayaan taxi u daaway ninkii ma u sheeg waa noqonaya marka waxaan ugu sheekay in hooyaday baan soo salaamayay dadkii laakiin go'aanka la isiiyay wuxuu waa inaan soo noqday dadkii dhan baan waa noqonaya dadka marka xaaladii iska socdaan bari dad Soomaali ah ehelka iyo asxaab kale iyo hindigi
قف وليبا وح الله وحمرك على عبد ساقة 8 سنة كبعد نقني وح مدين هذا هو مد وحشرات تيركي ولي عروري كل على حل أنقص الغني هندوسكو يقدر أنا عشان بقول دور بسير عشان تعب بقول ودين وراح زاوية نصار الغني دبر كلا صوماليين لا والله بقول أي كلمة أصاب حاول نيروبي كسود دقيق هو عايز أنت شوف فرحت نبي إلى أبوك كان ها سرت هذا وقتها صاحب ماشي أسكت دقيق السجا ما كو صون غنية لمن كانوا ضيرة أيها صون نقطة تتكلم بدو بك إيمانيا أفريقيا ما كانت سؤال حقوق عن قبسي أيها السوق قاتها marka waxaan aqaanaa qolo isu axibba ahayeen asaga oo isku mar yimaadeen qaar baa $30,000 ka watay qaar baa $20,000 watay qaar baa $5,000 nin wax mu soo qaat laakiin kan waxba tiirkii waan soo qaatay yaa Allah ku soo baxay dadkii meesha ay isla yimaadeen isla markii suuqay galaan adigu waxna waa helaan waxna markay lacag ku dubtay waa carray cabsaaq wuxuu cabaar baan joogay marka ay noloshii aan cabaar joogay baan nin weynaadee iska jif ceeb ay ugu noqotay maamad markuu xasiri maadaama ay rabtay inay ku aragto وأنا يعني هو يهدي واسكن قنا يا حقا كسر شقين يا ويلك برتك كم بحكت بس واسير أتكبر هاي راله وام بحب يوري حاسير بل أنت هذا فرق لك برسوق كوردون أصحابتي سوق جت أقول ورا هاي محل ورا هذا ضل كم نقول ماشي نحكم هاي يا محد ولا تلسان وحيري لمن أنا يرى أي إلى تعاطف العقل ولا سكسة الدري العقل اللي حيتهم كن أهيد أمانيني ودينا يعني هيا كم بلا شيخ سوق وأي هبل وصوب حبيوري مقال يا الدورت يا جار كذا أيام مدبر رشمان يبيور رشيم قصوا قاد نيروبيان كان شيلن بشيلن بوسط دقي مركان بحسوا حالي واحد سير نيو عيبابن تذكي أنت تذكي جارسين كرتاسي تذكي لا يأكل جمال بره وحي دينتسي قاري لما لها وحي كوهرن مركان العكاش إسكا كان قارن وحي وإلى دعمي بره أفلقاده تيجي حمكا جيد مش قيسته أصلا يطلع يربع يحكينه واي وإيه ما يبري أنا مركا حلال عليك بأسير وأصاب بحبري هذا أنا وحكي عن سكو ديفر إيش عويس مركا وحان دم عبنا نهارتك وقنعيه أنت سو دايمان قالي محاولة أفريقية ومارن وحائر بري وان بحيا باسبور لو جيبيس بقي قدر ما كون هبحين إياه عجيبني هذا جيبيس باسبور بقي قدر بس وأستي بقول خلاص حال أفريقيا ده أسكت 1997 يعني واحد أوريه مقعد من باص أنا كسومو كلب مغرب وكان عبد الساقة سعودة عبد الساقة أيوة في عندنا سودو بعد مساجر أنا مسكوا هنا وحن أوتي مركب أقول بان عندكوا هنا ولا حجر أروني مركب دروين سومالي ما له يماذا أيام وحن قد قادنا بقول شل الماس أقول تنسين ولا عبد الساقة يلعب عن كله أقول نوع سجل ما أقول مسيد مش رلو أقول بان يوساسو هايدي بس واجي مركب وحرر لعكت فورسي كسولي بنراعي ونجلس أروني سو دروين تكلم marka إن شاء الله وسوريا هكذا نجوي أنا ماشي كوارك مركز عبساق وحوري وإيش شيء مركا وحي كلا قبصدي الساق إيو نولش أفريقيا كندا نوقيمة وحوري هذا نولش ساسعيد دب وحن صومرة ومكان كوسو قابية ما أنت الحمد لله وأكتها في نولش دي ساعد إيش كينيا و 2000 مركز وحو حفيز كلية هاي دبي نيروبي دار السلام إيست أفريقيا ولما الشركة دو كفافتي مركو إلهي وحكو سينية الشركة دي بقى أتمن إلهي بقى وحي وكرتوري تفاصيش أنا وان هادا أنقلين وحسوه هنقو ما نبو إلهي بتكو قرفتي حرني هدفكو الشركة وحي حرني إيش
meeshaan aad ka socotaan aniga hadda lacag ka sameeyey jab ka bacdi markaan soo jabay meesha aad u socotana waa meesha aniga hadda aan ka imid ee joog rixladu waa dheeraad marka ilaa iyo 10 saacadood baan iyo 12 saacadood baan soo soconay intaasuu ishakeynay cashaan inuu ugu qanciyo inaan joogo aniga waa dhegeysanay sheekada way ugu socotaa waa 22 sano ka hor way 22 sano ka hor sheekadu waa dhegeysanaya laakiin maxaa ii go'an inaan bax furska uu sheegay way ii muuqdaan laakiin inaan u dulqaato oo u samro ayaan diidanaa عساق وسوق كوري هردي مكسور هاي خير كوري جنا سلام السلام عليكم قالوا واحد بري صباح هاي واسأل كنا أنا أسألك من صبح كسوار أنت كسور دقي بالكمسورين ما كان عبد الرزاق دب وعي إنه تيجي جبهه كله إلى هذا ما دام ما ندن وقت إجليه وقل نسن دبد نور الجرن سحب إنك الله خاجي الشكل المقال داير بان كقري ومال بدن كغا تتابتي لكن درسي وحو yahay الحمد لله قدر wali jooga dadkii aan ka soo tagay 22 sano ka hor badankooda Afrika maanta kuma aysan darsan ilaahay farj u furay diin dhaqaale caafimaad qofka dhalinyarta ahna wuxuu u baahan yahay in uu runtii sheekad aniga aan maanta aan 22 sano ka hor ka faa'iideysan waayay qofka maanta Afrika jooga inuu ka faa'iideysto muhiim jiddan wali hadda ka hor mar qadar dadka qadar waxay dhaqaal ahaan marka laga hadlayo wadan ahaan wadamada u dhaqaalaha badan dad badan waxay aaminsan haday meesh yimaadaan inuu dollarka iyo dahabka meel kasta ka daasay mufti hadda ka hor xaalad adag baa dhacday marka waagii soo shaqaalka website wax lagu qoray ayaa waxaan arkay dad badan oo la soo lugooyay oo tii anigu dhacday mid ani waaga kan markaas ay dib u noqdo 2 sano shaqalaan lahaa 2 sano labadaas sano waxaan ku mashquulsanaa san Afrika u noqon lahaa waliba aan kay ugu noqon lahaa sababtoo asxaabteydii aan ka soo tagay ayaa wada shaqaystay oo ninba igu darnaa oo dukaanka wada shaqayn jirnay qissa xaqiiqo ah 5 sano kama soo noqonay waa telefoon ma diray kelmad buu yiri cajiib aan la yahay niyo wuxuu aniga waxba ugu madarsan kartid aniga waxba ugu madarsan kartid ee $50,000 hadaad heli karto soo dirsan niman hadda mashruuc balaabay ayaan ku darayaa ana magaalada Nairobi ka kaxeeyay oo Kasuuma keenay meeshan wuxuu ku yimid lacag baa looga soo diray Soomaaliya waxa Mareykanka u socday wixii baa dib u dhacay marka wuxuu yiri intaad sponsorkiin bala beenta asuus bal meelahaas iska tag Kasuuma tagay niman dhalinyaro dukaamo haysto iyo dukaamada ka shaqeyn jiray niman dhalinyaro ah ayaa waxay dhaheen intaad sponsorka sugaysid dukaanka nooga shaqee waayaa bir $100 bay siinayaan iyo jiif waa $100 lacagtii dhoofkan intuu gashtay dukaan iga soo horjeeda ayuu ka shaqeynaya Cabdirrasaaq iyo shirkadiisa oo dollar ay raadinayso ayaa u timaaday dollar sarfa u baahan ana idin keenay birada suuq uu shunikan khalfid wuxuu leeyahay ganacsiga waa wilyar wixii bas ku xiray dollar ku keenaya adoo ka arur dadku ka arunaya ninkii 2 sano kama soo wareegay markuu dukaanka laftiisa la wareegay waa ninka hadda aniga leh ima gaartid $50,000 keensa $50,000 in la qoro waan arkay laakiin indama saranay marka qisadan iyo qisooyinka lamidka maxay tahay qofka maanta dhalinyarta iskuulka dhameeyay ama jaamacadda dhameeyay ay raba inuu tahriib galo ka soo qaad hada qadar iyo Soomaaliya soo dhaweeyay Soomaa meeqa ku keenta xisaab ku dhufso hadii fiisahaaga iyo waxaaga iyo banaanka shaqada heer ku yiin waxa ku keenta $5,000 $10,000 hadii book tahayna waa ka sidaran tahay $10,000 lacag yar mashruuc ku bilaabi kartaa mararka qaarkood dhalinyarta inay mukhaatara u galaan wax aysan ogeyn hadda Soomaaliya maanta waxay ku nooshahay oo inta lagu soo gaaray waa ganacsi لكن بدل ما يقول والله اليوم ماشي شقة مرة لكن قناعس بالله هدات الصومالي كويس إثيوبيا ودرس كذا والله وسمين كذا كينيا ودرس كينيا والله وسمين كذا يعني فرص كجامعة مثل اللي لقى الله ملكسة إلى نفري حياة إلهي سبحانه وتعالى نقول قاريك متى موت مركو قفر أن يرتأ وحن إلها إرساق قد إلهي سبحانه وتعالى ملكسة إليه
qofkii waxbarasho helo oo warqadiisa isku dubrasan yihiin oo rabo inuu wax soo barto soo noqonaya waa la gartay laakiin runtii waxyaabaha hadda dee waad ogtihiin tahriibka qabla kulli shay walwalka waalidka aad ka tegis waan baxaya markaad tiraahdo oo weliba aad baxdeeda yaa waxaan kugu dhilim taqana mid kaloo beeraala mid baa aniga markaan halkaan imid oo waxa igu dhaceen baan waxaan maqaalo dheer baan ka qoray oo aan Soomaali toog hadda ka heli kartaa سيد واحد مالك كرتا قدر هدات كله فتوى كيف كرتا ودور تونسون كورة maxaa igu qasbay noloshii aniga aan soo arkay ee been ahayd ayaa niman halkan joogo dadku waxay kaga cunayaan lacag fiisa buga loo diraya ama fiisa la sameeyo marka shaqa lagu haya halka hada timaado $5,000 miiska diyaar ku ah marka waxyaabahaas iyo wax la mid ah oo qof been sheegay oo ka dhaadhiciyay oo hooyada iyo aabaha iyo ehelkaaga markay runta ku sheegaan aad tiraahdo kuwan maxay mustaqbalkaaga aad ku ciyaaraysaa sida waxaan kusoo gabagabeyn nacmo oo aan rabaa inaan ciyaarta u sheego ana markaan yaraa waxaan aad u jeclaa dhoofka tii hadda dheerta yihiin magacyada waxaan ugu jeclaa hebel dhoof marka la yihahdo waxaan jeclaa BBC daan dhegeysan jiray dadka hebelka jooga halkaas jooga halkaa yaan jeclaa dhoof jaceylkayga wuxuu ii keenay inaan Afrika meelo badan soo wareego inaan Asia soo wareego inaan Europe soo wareego meelo badan qofkii igu darnaa aan la kulmo ee dhoof uu mustaqbalkiisa ka dhimayneen dhalinyaro ahaa Yurubtaas meel ka badan taa meel taran ku kulanay waa soo wareysanay hay inta ka markaas hay ko maxaad haysaa wuxuu Suuriyan ka soo baxay faraha meel kale laga qaaday sharci maqaalay waxaan qaban karaa malahan xagee ka timid Suuriya ka timid oo maxaad ka hay Suuriya arday baan ka haye oo galaaska fasalkii ugu dambeeyay baan habir anoo wax yar iga dhimad inaan qalin jibiyo ayaa qolo qaxays aska soo raacay hadda maxaa haysaa ma noqon kartaa markaas 2 sano meel soo joognaa 2 sano oo sii maray ma noqon karo waxbarasho ma gali karo idan waa labadii buu saagay qofka shaqana inaad shaqayso وانا سيستم كقشة سيستم وين ادقش وانا ولا اقبلها وانا اللغه برتا وان وحكس هوس رجع نكاني وحاول نندر يروح waxa laga yaabaa xataa Suuriya sidoo Ilaahay ogyahay oo aabiis ay hooyis ay laan mustaqbal kiis laakiin marka dhalinyarta akhyari ani la majaal horta waxbarasho oo ku soo maray loo fartaasisan dhoofkana hadii aad hesho oo ay ka baxsan wayso ha noqoto dhoof waxbarasho oo sharcigiis iyo warqadiisa ay u dhameystiran yihiin oo aad og tahay in aad wax ku helaysid ugu yaraan shahaadadaada ay madmuun tahay oo dadaan scholarship baan helay waana baxaya markaas yaa cid u horeysa gacan ku haysaa way aabay hooyada wiilka waxbarasho helay gabadh waxbarasho heshay tigirka waa kana deyn baa lagu raadin yaa shabaab dalka ha lagu sabro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم أصحابي رنانتي هدي هوري مقشي قف انت او أفريقيا كتغي يوروب كسو تاجر هدي مقشي ما انت بوكاسو اني كسو هردي قف انت او يوروب كسو شيدي هدنا أفريقيا تاجر كو نقضي وما تسنتها رنتي داوشada muuqaalkan waa ku maadsantahay mar ahaantii muuqaalkan marka aan bartayda aan jeclaysanay inaan bartayda asxaabta kula wadaago waxaan iyaan u arkay in uu asxaabta anfici doono sidoo kale qof walba dhalinyaro oo daawado in uu anfici doono maadaama aan arkay sidaa darteed ayaan walaalkii Cabdulle Khaliif u weydiistay in aan bartayda soo dhiga ma sha Allah asagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa maadaama uu codsigayga iga aqbalay oo ii ogolaaday in aan asxaabta bartayda aan kula wadaago aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale linkiga iyo tixraaciisa asagana YouTube-kiisa iyo barata tixraaciisana link description-ka ayaa ku soo dhigay oo aad kala socon kartaa wuxuuna soo dhigay runtii mowduucyo bulshada aad ugu muhiimsan ayuu soo dhigay runtii waa nin ma sha Allah qof dhalinyaro ah oo hadana maxay raadayay mowduucyo bulshada aad ahmiyad weyn u leh ayuu soo dhigaa sida cilmiga oo kale iyo akhriska oo ah maanta bulshada meesha ay ku curiyantay ayuu aad u soo dhigaa dhanka kale muuqaalkan maanta waxaan rajeynayaa in sidoo kale aniga sidii aan filanayay inuu dhalinyarada uu anfici doono adigana uu ku anfaca ayaan rajeynayaa waxay cadeynaysaa in qofka dhalinyarada inuu isbedelo aysan ku xirneen inuu dalka uu ka baxa inaysan qasab ahayn
balse meesha uu joogo uu isku bedeli kara. waxaan rajeynayaa fariintii aan islahaa inaad ka heli doonto inaad ka heshay. khayr badan ayaa kuu rajeynayaa.